wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha xisbiga Ucid Engineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta soo gaaray degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex. waftiga ayaa waxa ay deeq ka kooban raashin iyo biyo gaarsiiyeen barakacayaasha ku dhaqan degmadaasi, kuwaas oo ka koobnaa 100 qoys. waxaana deeqdani bixisay hay'adda Khadija Foundation. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Bashiir Xamari iyo Hoodo Cali Fidin oo ka socday hay'adda Khadija Foundation, waxaanay faahfaahiyeen deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen barakacayaasha degmada Salaxley. waxaanu joognaa degmada Salaxley kaamka ku agyaale barakacayaasha ayaanu joognaa. alxamdulillaah rabbil caalamiin, annagoo ka jawaabayna gurmadkii badnaa ee laga dalbaday dadka abaaraha hawlaha dalka ka socda oo dhan. waad ogeydeen oo dhul badan baanu soo marnaa, xaggaa barigaanu u badnayn. maanta degmadanaanu joognaa. alxamdulillaah rabbil caalamiin, dadkan waxaanu u keennay 4 booyadood oo biyo ah iyo 100 qoys raashinkood oo aanu kaa la qaybiyey ah ayaanu u keennay. alxamdulillaah rabbil caalamiin, waa ku wareejinay. waa gudoomiye degmada iyo ku-xigeenkiisii iyo odayadii dhan waa kuwa nala taagan, waa nagala wareegeen. waxaanu leenahay oo aanu diraynaa war dadkeenni maanta abaar iyo baahiba way haysaa. wax badan baa la sheegaa, waxna lama arko. shicbiga dawladda gacmaha la isqabsado, dadkeenni ha loo gurmado maanta meelay joogaanba. dawladda waxaan u sheegayaa ma odhanayo maanta abaaraha jira, qof kasta wuu og yahay, laakiin waxaan u sheegayaa qudha ma garanaysaa in loo baraarugo dhibaatadan taagan intaanay dhicin, aanay naftu iyo maalkuba aanay bixin, in loo baraarugo oo maxay tahay ceelalkan wada jaban laga shaqeeyo oo dadkan la wacyi geliyo sida maxay tahay dhaaman u qodan lahaayeen oo iska wax u qabso lagu qodo. haddii loo sii diyaar garoobo dee wuxuun baa inoo qabsoomi lahaa. imika roobka hadduu maanta inoo yimaado, dadkan weel ma haystaan ay ku shubtaan, biyihii ma haystaan, ceelal ooma qodna, dhaamam ooma qodna, markaa halkee biyi lagu xafidi? marka waa boinkaas aad iyo aad buu muhiimsan yahay in dawladdu ka hawl gasho oo maxay tahay maamulka degmaduna uu gudbiyo sidii maxay tahay iska xuu qabso loogu qodi lahaa dheem dadka wax loogu shubo. imika mid kasta aqalkiisa lagu soo shubaya, marka taas weelkaasna waxba u kafeyn maayo hadduu 5 cisho hayo dee hayn kari maayo. marka weel weyn bay u baahan yihiin barakacayaasha iyo degmooyinku bay u baahan yihiin. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada Salaxley Axmed Buraale iyo maayir ku-xigeenka محمد عبدي هارية. جوجنا دقمة سلحلي حافظة بركعياش دقمة سلحلي IDBS كنوليهين بركعياش دقمة سلحلي وإنت أنا ركتان روحانتي كبلارن ودمان كو كلافا كو محاكو بحسن صدق كفيليش محاكو رأي تولي دقمة مامشو تولي والبعد شوجا بركعياليات شوجا روحانتي أنت عارف ركتان وادور بقولون وحنا الكندي أدوكم هذا علمي له بمحل hay'adda Khadija Foundation iyo gudoomiye Faysal Cali Waraabe, Faysal Cali Xuseen gudoomiyaha xisbiga Ucid oo ruuxantii maanta halkan la jooga. raashinkan iyo biyaba labadaba keenay. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. baahiduna inta baahida Ilaahay baa dhamaystiray, inta way ka balaaran tahay. waxaan rajeynayaa in halka ka sii wadaan haddii Ilaahay yiraahdo oo intan ay idin noqoto barbilow oo idaan soo dawladinka wax geeyay intii ku filan tahay. waa aragtaano inta maanta taala wax ku filanba maaha oo maartay 100 qoys weeyaan. dadkii kale oo dhan waa aragtaan. waxaan rajeynayaa tribka xiga in insha Allah Khadija Foundation baa la hadlayaa inuu noqdo sida ugu dhaqsaha badan. roobkiina waa imika aragtaan tuska cidku iska tusan yahay oo Ilaahay baa naga soo gaari doono, Ilaahay baa noo shubi doona. waxaan mahad celinayaa hay'adda Khadija Foundation iyo gudoomiyaha xisbiga Ucid Engineer Faysal Cali Xuseen oo soo gaarsiiyay barakacan degmada Salaxley 100 qoys oo dan yar runtii abaartuna ay saameysay raashinkoodii. waxa soo kale ay keeneen biyo 4 booyadood biyo. waanu ka mahad celinaa runtii, waana xilli runtii ku habboon oo dadkan ay duruufo badan runtii ay la soo darseen maadaama runtii abaari ay baahsan deegaanka ka jirto. dadkan waa dad barakacayaal ah, waa dadkii xooluhu runtii ay ka dhamaadeen abaaraha soo noqday saameeyeen. waa dad runtii u baahan xilligana sii nugul oo u baahan runtii wax la qabto. aad iyo aad baan runtii uga mahad celinaynaa
guud ahaan deegaanka waxaa ka jirta runtii abaar baahsan iyo biyo la'aan ay ka badan 4500 oo qoys ayaa runtii cunno la'aan runtii daran runtii ay haleeshay biyuhu dhammaan deegaanka biyo la'aan meelihii ugu dambeeyay ay biyuhu ku jireen ay baraaga wax ku harsanayeen runtii way dhamaadeen daamkii qoolda xulaalo meesha ugu dambeysay haydna way dhamaatay runtii hal ceel baa shaqeynaya culeysku ugu badan saaran yahay marka qayladu meel walba way ka imanaysaa 30 tuulo oo midna runtii wax ku jiri weeyaan marka culeys badan iyo duruuf runtii halka taala waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo runtii ama ha noqoto ururada samafalka ama dadka muxsiniinta ha noqoto ama hay'adihii dawladda khasoo ha noqoto runtii in xaaladda runtii adag degdeg runtii wax laga qabto oo runtii biyo iyo baadbar dadka soo baahan la soo gaaro waxaa iyaguna ka dareen celiyey deeqdani maanta la soo gaadhsiiyey xubno ku hadlayey barakacayaasha degmada Salaxley waxaan noo keenay deeq raashina iyo biyaba ururka Khadija Foundation iyo gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Injineer Faysal Cali Xuseen oo na soo gaadhsiiyey deeq raashina iyo deeq booyado biyaba waxaan leenahay haddaanu nahay deegaankan degmada Salaxley gudoomiye xilli loo baahnaa baad keentay deeqdan oo ku munaasiba waxaan leenahay jasaakumullahu khayran dadkiina waxa qoon waxba looma sheego indhihiina khiyaar indhahay ka faqda waa arkaysaan dhibaatadana ilaahay uu baa qaadi kara bilaadanku wuu caawiyaa ma qaadi karo ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inay idinkuna si qurux badan iyo nabadgelyo ku tagtaan annagana noogu halgantaan annagana kolba waxaa noo keentaan mahadnaq iyo walaalnimo aanu ku qaadanno ilaahayna nagu gargaaro biyihii iyo baadkii maanta la iskugu kaayo daray wax la koobi karo mahadnaqoodu maaha ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Ucid Injineer Faysal Cali Waraabe waxaanu u mahadnaqay hay'adda Khadija Foundation waxaan aad ugu mahadnaqayaa Khadija Foundation oo hadda noqotay hay'adda kaliya ee ka dhex muuqata Soomaaliland waxaan aad ugu mahadnaqayaa iyadoo noo degan nugul Khadija Foundation magaalada meeshaas ay ka qayla ka timi ay noo soo degdegaan saasana ugu soo raacnaa deeqda ay maanta keeneen waxaan jecelahay insha Allah taala ilaahay xasanaadka ugu bedelo cirkina maanta uu noo tusan yahay waxaana hubaa inta in ka badan waa loo qaban doonaa hadii dadkeenu ay wada shaqeeyaan qulubtooda ilaahay siiyo waxaan aad u amaanayaa hoggaanka cusub ee deegaanka meeyarkii ku-xigeenka iyo golihiisa deegaanka oo durba isbedel weyn ay ka muuqato magaalada Salaxley waxa iyagana amaanaya gudida barakacayaasha oo iyaguna si nidaamsan u wada dadkan waxay u baahan yihiin in guriya loo dhiso guriya qiimo yar laba qol waa loo dhisi karaa waxaan jecelahay inay Khadija Foundation ay ku darsadaan barnaamijkooda kaasoo kale iyagana adduunka wayna dadka haddaynu waxaynin wayna adduunka wax u weydiinaa dadkeena laakiin waxaa nasiib darro markaynu wax dadkeena si u weyno adduunkana wax uga raadin kar weyno de waa gobolnimo dadka marka waa gobol bay taagan yihiin Khadija Foundation aad iyo aad ma naqayaa deegaankana waan aad iyo ugu dhaqanayaa madaxda deegaanka iyo deegaanka cusubba insha Allah taala gamcaan isqabsan doonaa ilaahay baa dadka deeqsin kara waxa ilaahayna waxaan raxmaad ku weydiisanayo ilaahay raxmaad degdega inaan siiyo ilaahay weydiisanayna waa mahadsantiin Maxamed Midh Qorsame Ariel TV Hargeysa